Bismillah, kusoo dhawaada muuqaal aan kaga hadlayno murqacasho ama wax loo yaqaano sprains. Ma ogtahay in dhaawacyada ugu badan ee isbitaalada loo tago ay ka mid yihiin kuwa saameeya seedaha iyo murqaha? Ma kuftay weligaa oo ma murqacatay? Murqacashadu waa kala jiiditaan ama go'itaan ku dhaca seeda, oo ah waxa isu haya murqaha iyo lafaha. Meesha ugu badan ee murqacata waa anqowga ama wax loo yaqaano ankle joint. Waxaa kaloo murqacashadu ku badan tahay jilibka iyo macaamta ama wax loo yaqaano wrist joint. Waxaa badanaa sababa murqacashada anqowga in qofka ay lugta u laabato, sida sawirka hoose, taasi ay kala jiidato ama kala goyso seedihii isu hayay qaybta bannaanka ee kala goyska anqowga. Murqacashada waxaa loo qeybiyaa 3 nooc oo kala ah. First degree, mid fudud, seedu way kala jiidmatay laakiin ma go'in. Second degree, oo ah mid dhexdhexaad ah, seedu qayb ayay ka go'day balse qaybta kale ayay iska haysataa. Third degree, oo ah mid daran, seeda oo dhan ayaa kala go'day. Calaamadaha guud ee lagu arko murqacashada anqowga waxaa ka mid ah xanuun kala goyska ah, gaar ahaan qaybta bannaanka, meesha oo bararto, meesha oo guduuta, iyo qofka oo xanuun zaa'id ka dareema marka uu soconayo. Calaamaadka qofku waxay ku xiran yihiin heerka murqacashada ay gaarsiisan tahay. Waxyaabaha ugu fudud ee lagu tacaalo murqacashada waxaa ka mid ah in lugta la nasiyo, in baraf ama wax qabow la saaro, in lugta kor loo qaado sida in barkin la saaro, in la siiyo qofka xanuun baabi'iyaal sida paracetamol. Dhibaatooyinka ugu badan ee ka dhasha murqacashada waxaa ka mid ah xanuun ama barar muddo ka jira meeshii murqacatay, iyo dhicitaan iyo murqacasho kusoo noqnoqota. Fiiro gaar ah, halka kama dambaysta ah ee murqacashada waxa uu ku xiran yahay sida ay wax u gaareen seeda. Sidaas daraaddeed, waxaa habboon in aad la tashato dhakhtarka si la talin iyo daaweyn kugu habboon lagu siiyo. Sidoo kale, waxaa bukaanada murqacday loo sameeyaa kaste, oo ah in jeesto la saaro ama lagu xiro muddo kooban. Taasi waxay fududeynaysaa in murqacashada waqti yar ay ku bogsato, kana ilaaliso dhaqdhaqaaqa meesha. Walaal, haddii aad ku cusub tahay page-keena, follow dheh, like saar. Haddii aad nala joogtidna waad ku mahadsan tahay la jirkaaga. Wixii ra'yi iyo faalo ah noogu reebta qaybta commentiga. La sii wadaag asxaabtaada kale fiidiyowgan si ay iga faa'iidaystaan. Waa walaalkiina Dr. Asnac Al Nuur oo idin leh ka faa'iidaysi wacan.